الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحلقات كان كجهد ليني وحيالها قفك مسلم كدين تيسا واجب أي كجتها إنه أوجاده قفك استوى مسلم هنا أي تهي إنه نجاهل كان نقنن وحن كسو هذا اللي الإيمان بالله إنه قفك إله الرميو وحن كسو هذا اللي الإيمان بالملائكة إنه قفك ملائكة الرميو وحن كسو هذا اللي الإيمان بالرسل إنه قفك الرميو الرسل وحل يراده وحايدنا مهم ما أنت كهذا لنا نقولهم الإيمان بالكتب إنه قفك الرميو وحل يراده كتب تاسوا محي وفريمه وإلهي صدري وفريمه وإلهي صدجي كتب تاسي ترى انتبه لا اجتهي إلهي باقران كريا وحا كتبتها كمد أها أنوين جمعيين إسونا ولا كيني وكتاب كينا قرآن كا فرقان كتاب كينا قرآن كاها وكتاب كأبو جامع سن وإلهي كتبه كهرية ودني سوكو كيني وحا كمدها كتبتاس كتاب كي لغسو دجيي نبي موسى عليه السلام توراة waxaa kutubta ka mid ah zabuur waxaa kutubta ka mid ah injiil kutubta waxaa ka mid ah wax la yiraahdo suxuf ibraahim wa muusa suxuf iyo waraqooyin aad u fara badan baa ka mid ah marka qofka muslimka waxaa laga rabaa kutubta aan sheegay si duuduub aha inaad u rumayso an tu'mina billah amana ar-rasuulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuun كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتبه وإن الرميو كتبتا إلهي سودجي ودن كتابنا بينين كتاب كستاينا واسح وإن الرميو أوكله لكن كتابك قدام بيي سانشيري اللي يسوق كاني معناها كتبتا كجرتا ودن لغو سود جمعيي اللغو كلميي وكتاب كان قرآن كأها marka amal falku muxuu noqon waxa lagu amal fali waa kitaabka quraanka ah xagga rumaynta laakiin gebi waa wala rumaynana ilaahay bana soo wala dajiyay waa inaad aaminto kitaabkeena quraankiihi waa kitaabka lagu nasakhay ee lagu soo xiray kutubaha kale marka xagga amal falka waxaad ku amal fali waa kitaabkeena waa inaad ogaatana kitaabkeena inuu nasakhay كتبه كله فمثلا حركة سمرك قاركود دولة هدي أنت بدن جري قرنية كسو جري بقر هذه هورا دي نبى العقب سمي سنجري نبى وحوي دي عملوا لها العقب ولا هاي الدولة كستاي العقد قدام بيسا أم بمركز بسوق كجرتا تاهم بوحلو يبسن كرا تاهم بوحلو كلا جلن كرا تاهم بلو كلا بيع مشتري كرا تاهم بوحوي تجارة كسو عنيسا lacagihii hore ee qarniye jiray hadda la soo baxdo cidna waxba kaga iiminayso sababtoo waa maxay waqtigeedii lama joogo marka tan waa saas oo kale marka diinta iyo kitaabka maanta socda kutubihii horena lagu soo wala xiriirsan sheegna waa quraankeena marka saadaradeed ba kitaab kasta oo kitaabkeena ku horiyay qof ilaa maanta waan ku amal falayaa de waa nin la soo baxay oo kale san sheegna lacagaha hore ee beriyada hore oo jiray marka xagga ilaahay kama socoto صدرت النبي عليه الصلاة والسلام مر وعمر وليمد كتبه هوري يا صحفتي هوري قار كمدها النبي صلى الله عليه وسلم أدب أوجا تأثري أما وكسام أما وكعرض بنا وركرنا وحنا النبي وشجع صلى الله عليه وسلم عمر يوم الدور دنبه نبي موسى عليه السلام يا أمبيدي كوريس أما كدم بسهدي ولا إيمان لهاين waxay ku amal fali lahaayeen waa kitaabka quraanka oo kaliya sadaraad nabi ciisa alayhi salaam uu nool yahay lama dilin aakhiru zamaanka markuu yimaado oo ilaahay soo dhaadhiciyo qisadiisuna way dheertay nabi ciise magaalada dimashq la yiraahdo ilaahay uu ka soo dhaadhiciyo cirka laga soo dhaadhiciyo salaadu tukani salaadiisi maaha nabi ciise waa salaada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam diintu ku amal falayay waa diinta nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam oran maayo nabi ciise nimadkiisa asagoo wata injiil baan idinku xukumaya
ama injiil baan idinku dhaqayaa ma oranhayo ee wuxuu inagu dhaqayo oo inagu hogaamin doono isaga iyo mahdiguba waa diinta nabi muxamed sallallahu alayhi wasallam marka muhiim waxa ay inaad ogaato diinta nabi muxamed iyo quraanka nabi muxamed ayaa nasakhay kutubihii hore iyo diimihii hore oo dhan kolkan ku leeyahay waa inaad kutubta rumayso tawraad si guud baan u rumaynaynaa injiil si guud baan u rumaynaynaa zabuur si guud baan u rumaynaynaa suxuftii ibraahim wa muusa iyo suxufihii kaleba ee la soo dejiyey waraaqihii la soo dejiyey si guud baan u rumaynaynaa laakiin qur-aankeenna asaga si tafsiil ah oo kala dhigdhigan oo xaraf ah oo ahaa dhibic ayaad u rumaynaysaa waa inaan rumayno kitaabkeenna qur-aankii in uu ka nabadgalay ilaahayna ka nabadgeliyey wax la yidhaahdo taxriif yani wax qalad ahoo qur-aankan ku jiray ma jiro wax ziyaado oo ku jirayna ma jiro wax nuqsaan ahoo qur-aanka ku jirtayna ma jiro sidaa uu yahay waa suu ilaahay kaga yimid ee jibriil loogu soo dhiibay oo nabigeenna ugu dhiibay nabigeennuna saxaabadiisa uu ugu sii dhiibay qofkii aamina qur-aankaas hal xaraf oo ziyaado ah ku jira bal hal dhibic oo ziyaado ah ku jirto qofkii aaminay waa gaal milada islaamka uu ka baxsan yahay qofkii aamina dhanka kale qur-aankan hal dhibic ahaa laga naaqusay ama xaraf baa laga naaqusay ama aayad baa laga naaqusay ama suurad baa laga naaqusay oo ka dhiman qofkii qur-aankan inuu dhiman yahay aamina isna waa gaal milada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam dibaddu ka yahay marka qur-aankan ilaahay wuxuu leeyahay innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun ilahay wuxuu leeyahay jalla wacala qur-aankan annakaa soo dejinnay ilaalintiisana ayay saaran tahay annakayna saaranta buu ilahay leeyahay kutubihii hore kolkuu ilaahay soo dejiyo ee ambiyadii hore lagu soo dejiyo ilaalinteeda kutubtaas in la ilaaliyo oo ziyaadada laga ilaaliyo oo nuqsaanta laga ilaaliyo wuxuu ilaahay u xil saaray nabiga iyo kolba intii rumaysay laakiin kitaabkeena qur-aanka ahaa ilaalintiisa iyo xifaadadiisa ilaahay nabi maxamed kuma daynin saxaabadana kuma daynin ummadana kuma daynin asaga ilaahay arrintaa gacanta ku haya jalla wacala saa daraaddeed min maalinkii qur-aankan la soo dejiyey 1,000 jeer wax ka badan ayaa la isku dayay qur-aankan wuxuun in laga bedelo ayaa la isku dayay qur-aankan in wuxuun lagu ziyaadiyo ayaa la isku dayay qur-aankan in wuxuun laga naaquso laakiin wax suurta galay oo hirgalay oo lagu camal falay ma jirto waayo xifdiga qur-aankan ilaalintiisu waa shaqo ilaahay u taala qof kastoo bani aadam oo isku dayana arintaas waxa weeyaan way u suurtageli weyday laakiin diimahan hore tawraadan oo kale maalan maanta taalaay tii nabi muuse ku soo degtay ma aha intaasoo jeer baa la bedelay intaasoo jeer baa wax lagu beeriyey intaasoo jeer baa waxa weeyaan wax laga bedbedelay injiilshuna saasoo kale iyadana kristanku aysa iyagana waa saasoo kale intaasoo jeer baa wax la bedelay intaasoo jeer baa wax lagu naaqusay bal waxa laga yaabaa laba kitaab oo quraan ah iyagu haystaan injiilshooda aha ayaa kan ziyaada ku jirtaa oo inta kan ku jirtay kan kale ayna ku jirin sababtuna waa maxay xifdigeeda iyo ilaalinteeda kutubta hore bani aadam buu ilaahay u daayay te bani aadam waa iska bani aadamun laakiin kitaabkeena quraanka saan sheegayno ilaalintiisa ilaahay tabaaraka wa tacaala asaga ayaa isu xil saaraysa daraadeed quraankana waa maxfuud weeyaan waxaa waajibna ah marka quraankeena inaan baranno tafsiirkiisa aan baranno ubadkeenana aan barno dadkana aan barno marka xalaqadeena maanta insha Allah taala ay ku saabsaneed al-iimaan bil kutub intaas maanta insha Allah taala inoogu joogtaa waxa inoo soo socda insha Allah taala al-iimaan bil yawm al-aakhir kuna dheeraan doona asaga insha Allah taala waxa inoogu sii xigta insha Allah taala al-iimaan bil qadaa'i wal qadar inoogu sii xiga insha Allah taala علم العقائد إن شاء الله تعالى إسنا وحبان كسي تاتابان دونا وسلسلة دير إن شاء الله تعالى طهارة كهد دونا عبادات كان كهد دونا إن شاء الله تعالى معاشرات كان كهد دونا يا أخلاق قفك مسلم كأها وسلسلة دير إن شاء الله تعالى ساو قابا
xalaqadeena maantana insha allahu taala intaasay noogu dhan tahay fa inta insha allah xalaqad kale aan sugu iman doono waxaan idinku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu